xaafadda Gedi Jecel ee degmada Warta Nabadda gaar ahaan markaska jaamacadda Facaweyn ee Raashi Cali Cilmi Yare ayaa sagootin heerkeedu sarreeyo loogu sameeyay caalimka da'da yar Sheekh Cabdishakuur kana mid ah awlaaddii u dhalay cilmi badanihii Soomaaliyeed ee Sheekh Maxamed Cuthmaan. Sheekh Cabdishakuur oo xilliyadii ugu dambeeyay ku sugnaa caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho ayaa hadda u jihaysay gobolka Mudug ee bartamaha dhulka Soomaaliya ahna deegaankii Sheekha. Bilowgii munaasabadda ayaa culimudiinkii markaska ku sugnaa ku oogeen xadra ay ugu talagaleen inay qayb weyn ka ahaato sagootinta Sheekha. intaa kadib Sheekh Cabdishakuur ayaa kelimad isugu jirtay dardaaran duco iyo mahadcelin ku soo afmaray munaasabadii koobnayd. Waxa maantay dhif iyo naadir ah dhalinyaro noocaana oo Ilaahay diinkiisa ku midaysan ama diyaar u ah inay faafiyaan ama ka faa'iideystaan oo sidoo cilmigu waa qof baranaya qof wax baraya maantay dhalinyarta noocaan ah adduunku waa ku yartahay marka waxa haysaan dhuxul daba oo aad u kuleyl badan mar walba waxa loo baahan yahay inaad dhimrisaan oo dadaal muujisaan oo ku samirtaan hawsha maanta adduunyadu ay ku jirto waa ogtihiin nabiguna wuxuu yiri badadiinu qariiban fasiicuudu qariiban duwa lil qurbaay diinku qariib buu ku yimid qariibna waa ku laabanayaa mar walba waxa ogtihiin samanku ka dambeeya inuu ka sii liito oo ka sii dhib badan yahay mashaayikhdii diintan soo gaarsiisay waxa ogtihiin halganka iyo dhibka badan ay soo mareen qaasatan markii laga soo sheekeeyo mashaayikhdii gobolka wax ku soo baratay gobolka Mudug oo Sheekh Cilmi Yare iyo Sheekh Maxamed Cuthmaan iyo Sheekh Ismaaciil iyo Sheekh Saciid Maxamed Cabdi rag akhyaartaha oo diinka laga soo naqliyay halgankii iyo dhibkii iyo juhdigii ay ku bixiyaan idinkana waxa rajaynaynaa tiimkii dhaxla oo mar walba ka faa'iideysta inaan noqotaan dhalinyartu kuwana gobolkii bay jiraan kuwana caasimadda ku nool yihiin muhiimaddu waxa weeye in la isku xirnaado oo dhalinyartu isku xirnaato oo Ilaahay diinkiisa la iska kaashado meel walba la joogo waxaan noo ballanaa duco iyo mar walba iyo maxabaysi insha Allah waan iska warqabaynaa haddii alla idmo waxaan ka mahad celinayaa mar labaad soo dhaweynta sharafta leh ee ay samayseen ehelka iyo laaqigaan u ahayn waxaan leeyahay wax ka khayr badan Allah idinkugu bedelo niyadiinana Allah idinkugu khayro anigu runtii waxaan ahay adoomada u liita oo runtii aan gaarin maqaamkan maanta ah laakiin idinka niyadiina Ilaahay idinku khayrayaa waa ka mahad celinayaa mar walba meel kasto aan joogno waa isku soo ducaynaynaa haddii alla idmo dhammaan waxaan leeyahay dadka meeshaan iskugu yimid waxay doonayaan caawa wax ka khayr badan Allah ugu bedelo dhammaantood waxaan leeyahay Allah barakeeyo meel kasto ay ka yimaadeen iyo meel kasto miro ay ka leeyihiin Allah u barakeeyo adduunka dhan Allah furfuro kitaabkooda midigta Allah ka siiyo waxaan leeyahay mar walba kuwii iska warqo isku soo duceeya Allah naga dhigo ducadu waxay ku khayr badan tahay in dadku kala maqan yahay ayoo kala maqan ay niyadda iska warqabaan oo isku soo duceeyaan marka mar walba aan isku soo ducayno maanta dhalinyaradan oo runtii aan rajaynayo nin walba inuu doonayo inuu wax barto oo kitaab ku mashquulsan yahay oo juhdi iyo dadaal uu ku jiro waxaan leeyahay nin walba kitaabka uu doonayo inuu barto Allah u sahlo Allah xafidsiyo Cali Samatar siisi diinta ku xambaara Allah idinka dhigo. Safarka Sheekha ayaa ku wajahan deegaanka Galmudug gaar ahaan Mudug halka ayuuna Sheekhu ka sii wadi doonaa khidmadii uu u hayay ummadda Soomaaliyeed. Maxamed Cabdi Cadde, Hadyuddin TV, magaalada Muqdisho.